السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنال كمركز السود وده مقال كان وحرب إن الندي كله وده قام مدحوين ترامب وجوردو شيء إن إذا ماذا آيس وقدريو جرامة ديارها أمريكانكا أرنت سنة سومالي ده شرع الدرادة أي مسافرين يانا يوري محيطها مركز سبب تحل عن ترامب أولي هاي إذا ماذا آيس أيان قدريا جرامة أمريكانكا سبب أي كدم بيسا محايا لي مالنتي سودن إيه اللحات أي قيبة كمية وزارة أمنية جودها أي كونغرس وديدين in ay miisaaniyad u ansixiyaan sababo la xiriira in isbedel lagu sameeyo ciidamada ICE iyo kuwa xuduudaha laakiin hay'adaha ay ka mid yihiin TSA oo ah ciidamada garoomada diyaaradaha dharka buluuga wato aad aragteen oo dadka baara markay garoomada diyaaradaha ka dhoofayaan hay'adda maareynta masiibooyinka iyo sidoo kalena ciidamada Navy-ga ee badda iyo kuwa la dagaalama dambiyada dhinaca internetka ee cyber security-ga arrimahaasi oo idil ayay saameysay arrintan muranka arrintaasi ka taagan iyo garoomadii diyaaradaha oo laga dhoofi la yahay diyaarad badanna la kansalaya sababo la xiriira ciidamadaasi baaraya dadka marka garoomadu ay ka dhoofayaan oo aan soo shaqo tagin sababo la xiriira mushaarkoodii oo aysan helin ayaan idinla wadaagaya Trump shalay bartiisa Truth Social sidoo kale waxa uu ku soo qoray in ujeedooyinkii ay Iran u weerareen hadda ay u dhow yihiin inay gaaraan dhawaana howlgallada ay ciidamada Mareykanku ay wadaan la soo gabagabayn doono 5 qodob ayuuna ka dhawaajiyay maxay yihiin 5taasi qodob waa idin la wadaagaya Trump oo sidoo kale dowladda Mareykanka oo cunaqabatayntii dhinaca shidaalka ka qaaday Iran xilli labaduba ay dagaalamayaan arrintaasina maxay tahay saddexda qorshe ee Trump laga yaabo in ciidamo uu ugu diro gudaha wadanka Iran maxay yihiin oo la shaaciyay iyo sidoo kale kiiskii Freedom of Future oo Soomaali kale shalay dambigooda ay qirteen imise qof ayaa dacwad lagu soo oogay imise ayaa dambigooda qiratay imise ayaa dhimatay imise ayaana hadda xukun sugayaala arrimahaasina waan idin la wadaagaya madaxweyne Trump ayaa waxa uu goordhow bartiisa Truth Social-ka uu ku soo qoray qoraalkan uu leeyahay ciidamada ICE ayaan u dirayaa garoomada diyaaradaha ee Mareykanka waxauna leeyahay waxa ay masaafurinayaan dadka sharci darada ah oo Soomaali uu carabaabay maxaa Soomaali Trump markasta uu hadlo horta uu carabkiisa uu uga dhawaajiyay arrintaas waan idin la wadaagaya Trump waxa uu leeyahay xubnaha dhinaca bidixda ee dimuqraadiyiinta waxa ay diideen in ay heshiis degdeg ah gaaraan si aeroboorada Mareykanka loo furo oo looga dhigo kuwo free ah isla markaana ammaan ah waxaan ognahay in hay'adda TSA ay hoos timaado wasaaradda amniga gudaha maanta ku 36 maalmood Congressku heshiis waa ka gaari la'yahay in la maalgeliyo qaybo kamid ah wasaaradda amniga gudaha sababo la xiriira dimuqraadiyiintu waxay doonayaan in isbedel lagu sameeyo ciidamada ICE oo ognahay wixii ay ka dhigeen gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis iyo St. Paul iyo sidoo kale ciidamada xuduudaha waxyaabaha ay doonayaan waxa kamid ah in horta maskaratiga iska furaan ciidamadu marka howlgallada ay sameynayaan in warranty ay qaataan marka ay howlgallada sameynayaan guryaha ay galayaan in kaamarooyin loo xiro iyo in batch loo sameeyo waxyaabaha ay doonayaan dimuqraadiyiinta waay marka dimuqraadiyiintu waxay soo jeediyeen in hay'adaha kale sida hay'addan TSA oo ciidamada baara dadku markay garoomada ay ka dhoofayaan hay'adda maareynta masiibooyinka ciidamada Navy-ga ee badda iyo sidoo kale hay'adda iyaduna la dagaalanta dambiyada dhinaca internetka sida hackinada lagu sameeyo cyber security la yiraahdo in ay maalgeliyaan laakiin Republicanku waxay leeyihiin ma doonayno in la kala reebo maalgelinta wasaaradda amniga gudaha hal isku wada daro ama haddii kale ma jirayaan wax la kala qaadayo marka dhibaatadu halkaas ayay ka taagan tahay marka shaqaalaha TSA maadaama wax mushaara aysan helin muddo bil ka badan qaarkood ilaa ay 300 shaqadii waa ay ka tageen maxaa yeelay bil ayaa looga baahan yahay shaqooyin kale ayay raadsadeen halka qaarkoodna ay soo wactamayaan oo leeyihiin ma iman kara shaqadii waan ognahay shidaalkii waa qaali waxay leeyihiin qaarkood xitaa shidaalku ma shuban karno shalay waxaan arkayay haweeney dhehayso oo ciidamadaasi kamid ah gabadheeda ayaa dhalashadeeda lacag ay ugu talaga soo shaqaysatay ayaan waxaan ku iri lacag aan gaas ku iibsada iga sii marka dadku waxay leeyihiin waxaan cunana qoyskeena uma hayno credit iskama bixin karno gaariga shidaal kuma shuban karno sideen u soo shaqo tagnaa marka taasi waxay sababtay marka aeroboorada Mareykanka in laymanda dheer ay sameysmaan oo la arkayo xitaa ilaa iyo banaanka sida aeroboorada waaweyn Atlanta Texas oo kale Washington oo kale iyo aerobooradaasi iyo New York in line-ku uu dheer yahay parking uu ka soo bilaabanayo ilaa iyo gate agentiga qofka oo dadka tikidhadooda fiirinaya ee body passkooda in line-ku uu taxan yahay dadkii diyaaradaha in dib u dhac ku yimaado la kansalo
dadka waxaa la leeyahay 5 saacadood 6 saacadood ka hor airportka imaada haddii aad doonaysaan inaad dhooftaan marka arrintaasi waxay sababtay marka in airportadii maadaama hadda xitaa spring breakii lagu jiro oo xilligii fasaxa iskuulada la xirayay dadku ay meelo kala duwan aadayeen gobollo kala duwan in halkaas dhibaato weyn ay ka dhalatay marka Trump waxa uu leeyahay in hadda waxaan qaadayaa tilaabadan oo ciidamadeena wadaniyiinta ee ICE ayaa waxaan geynayaa garoomada waxayna sugi doonaan amniga shaqadaasi ayay qaban doonaan horeyna arrintan ma aysan u dhicin waxa uu leeyahay waxay si degdeg ah ku xiri doonaan dadka sharci darada ee wadankeena sharci darada ku yimid isagoo carabkiisa mar kale ku adkeeya Soomaalida marka dad badan wadanka sharci darro ku soo galay laakiin Soomaalidii ayaa Trump uu carabkiisa ku adkeynaya waxa uu leeyahay waxay gabi ahaanba burburiyeen iyaga iyo gudoomiyahooda musuqmaasuqa oo gudoomiyaha gobolka Minnesota ula jeedo Tim Walz iyo xeraalyaha guud ee gobolkaasi in Keith Ellison iyo waliba Ilhaan Cumar xildhibaanada waxa uu yiri waxay burburiyeen gobolkaasi oo mar ahaan jiray gobol aad u weyn isla markaana waxaan hadda doonayaa uu yiri inaan ciidamada ICE aan geeyo airportada Mareykanka marka Trump waxa uu leeyahay maadaama hay'adii TSA waxaa la yiraahdaa hay'adaas waxaa la sameeyay xilligii ay 9/11 ay dhaceen weeraradii New York lagu qaaday jiray iyo Pentagonka waxa Transportation Security Administration ayaa la yiraahdaa TSA ayaa loo soo gaabiyaa marka waa ciidamada qofku markuu jackinka maraya baara hadii waxyaabo la kiwiray wato suunka furkabaasi waa ciidamada saas marka ciidamadaasi maadaama ay soo shaqo tagi waayeen waxa uu leeyahay hawshaasi marka ciidamada ICE ayaa qabanaya marka waad maqlaysaan dadkii sharci darada ahaa airportadii aan la isku aadin maxaa yeelay Trump hadda waxa uu leeyahay ICE ayaan bageynayaaba qof kasta ay dhigiisa la fiirinaya oo midkan wadanka sharci darro ku jooga adiga xagga ku leexo isla markayba waxa laga yaabaa in horey laga xiro markaasi horey xabsi laga geeyo arrintaasi ayaa Trump hadda uu ka dhawaajiyay sidoo kale ninka adduunka ugu lacagta badan oo maalqabeenka adduunka Elon Musk isaguna waxa uu leeyahay waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo lacag mushaar aan siiyo ciidamada TSA-da inta lagu guda jiro arrintan miisaaniyadan ay Congress-ku ay isku mari laayihiin waxaana uu sheegay inay saameynayso nolosha dad fara badan oo Amerikaana kuwaasi oo airportada Mareykanka ka dhoofa ninka Elon Musk ana sidaasi ayuu sidoo kale leeyahay dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa shalay qoraalkan bartiisa True Social isaguna ku soo qoray waxa uu leeyahay waxaan u dhownahay inaan gaarno ujeedooyinkii aan dagaalka ugu qaadnay Iran sidaas darteed howlgalladeena military waan soo gabagabeynayna oo bariga dhexe aan ka wadno isla markaana aan la dagaalamayna dawladda argagixisada ee Iran shantan qodob ayuu sheegaya marka oo hadda ay sheegay inta badan in ujeedooyinkii ay u weerareen ay tahay Iran oo Mareykanku uu gaaray wuxuu leeyahay gabi ahaanba waxaan burburinay awoodoodii dhinaca misaylada iyo waliba gawaarida laga soo tuuro misaylada gabi ahaanba waan burburinay ayuu leeyahay iyo wax kasta oo arrintaasi la xiriiray labo wuxuu leeyahay waxaan burburinay goobihii ay lahayd wasaaradda gaashaandhigga oo hubka ay ku sameyn jireen iyagana waan burburinay saddex wuxuu leeyahay ciidamadoodii badda iyo kuwii cirka ayagana meesha ayaan ka saarnay iyo waliba gantaaladii lidka diyaaradaha meesha ayaan ka saarnay afar wuxuu leeyahay mar kale ma ogolaan doono in Iran xitaa ay u dhawaato in awood nuclear ah ay yeelato wuxuuna leeyahay mar kastana anaga booskeena Mareykanka halkaasi ayaan taagnayn in Iran aan loo ogolaanin in hub nuclear ah ay yeelato markasta arrintaasi haday dhacdana si degdeg ah oo awood badan ayaan uga jawaabaynaa ayuu leeyahay xaaladaas oo kale haday mar kale ay soo laabato manaba aysan ahayn in ay dhacdo oo Iran hub nuclear ay yeelato ayuu ula jeedaa qodobka shanaad waxa uu leeyahay waxaan mar kastaba aan ilaalinaynaa waliba ilaalinta midda ugu sareysa xulufadeena bariga dhexe ayuu leeyahay ay ka mid yihiin oo carabaabaya waliba Israa'iil Sacuudi Carabiya kuwan kale waa lagu luga duubanaya laakiin muhiimadda loo jeedo waa Israa'iil kuwan kale hadda waa wati gantaalada laga soo qaado Israa'iil la keenay marka waxa uu leeyahay xulufadeena bariga dhexe mar kastaba waan ilaalinaynaa oo aan difaacaynaa ay ka mid yihiin Israa'iil Sacuudi Carabiya Qatar Imaaraadka Bahrain Kuwait iyo kuwa kale marinka Hormuz ayuu ka hadlay Trump waxa uu leeyahay marinka Hormuz mar kastaba waa la ilaalin doonaa hadii laga maarmaan ay noqoto waxaana ilaalin doona wadamada adeegsada Trump mar kastaba wuxuu yiraahdaa anaga shidaalka ma helno bariga marinkaasi Hormuz marka waxa uu leeyahay hadii laga maarmaan ay noqoto waxa ilaalin doono wadamada isticmaala sidoo kalena Mareykanku isaguna gacan ayuu ka geysan doonaa hadii la weydiisto wadamadaasina waan ku caawin doonaa dadaalkooda ay ku doonayaan in marinka Hormuz amaankiisa ay ku sugaan laakiin waxa uu yiri looma baahnaan doono oo laga maarmaan ma noqon doonto hadii marba la cirib tiro qatarta Iran mid ugu muhiimsan waxay tahay uu yiri wadamadaasi way u fududaan doontaa military ahaan in ay howlgal ka fuliyaan Iran maxaa yeelay awoodoodii annaga ayaa meesha ka saarnay Trump marka sidaasi ayuu leeyahay hadda waxa soo baxay in ciidamada Mareykanka ee dagaalka ku dhintay ay 13 askari ay gaareen oo Mareykanka uga dhintay dhaawacuna 232 ayay sheegteen 10 ayaa dhaawacoodu uu halis yahay marka waxa la leeyahay 3
tallaabo ayaa jirta oo Maraykanka ciidamo uu ugu diri karo gudaha wadanka Iiraan. Haddana ilaa iyo 2,500 oo ciidamo dheeraad ah ayuu bariga dhexe Maraykanku u diray. Tan koobaad waxay tahay Maraykanku bishii 6aad dagaalkii 12 maalmood waxa uu Trump markii uu weerarayay goobaha nuclearka Iiraan ay ku sameysanaysay Fordo iyo Natanz iyo Isfahan, waxa hadda la leeyahay uraniumkii oo aad u fara badan, uraniumkaasi weli dhulka hoostiisa ayuu ku jiraa. Iiraanna sooma bixin karto oo burbur xoogan ayaa ka sareeya. Maraykankuna waxa uu leeyahay marka waxaan doonaynaa inaan ciidamo halkaasi geyno si uraniumkaasi ay u soo qaadaan. Waa ujeedada koowaad oo Maraykanku ciidamo uu ugu diri karo gudaha wadanka Iiraan. Tan labaad waxay tahay jasiiradii uu toddobaadkii la soo dhaafay Maraykanku duqeeyay ee Qiraaq la yiraahdo oo ah halka ugu weyn oo Iiraan ay ka dhoofiso shidaalka in ay la wareegaan. Tan kalena waxa uu leeyahay in ciidamo la geeyo jasiiradaha yaryar iyo weliba dekedaha ka agdhow Persian Gulfka si loo joojiyo Iiraan in weeraro ay ku soo qaado maraakiibta shidaalka sida gacankaasi Hormuz maraya. Saddexdaasi tallaabo ayaa sidoo kale Maraykanku laga yaabaa in ciidamo uu ugu diro gudaha wadanka Iiraan. Hadda waxaa soo baxaysa in dowladda Maraykanku ay cunaqabatayntii dhinaca shidaalka ay ka qaaday Iiraan xilli weliba dagaal ay ku wada jiraan. Ilaa iyo 140 milyan oo fuusto oo shidaalka ugu qaalisan Iiraan ayaa hadda Maraykanku waxa uu leeyahay cunaqabatayntii ayaan ka qaadnay, maxaa yeelay markii horeba Shiinaha ayaa ka faa'iideysanayay. Sidoo kale waa muddo bil ah hadda oo laga qaaday cunaqabataynta. Trump waxaan ognahay sidoo kale inuu ka qafiifiyay cunaqabatayntii uu ka qaaday wadanka Ruushka. Marka weliba iyadoo dagaal lagu wada jira ayaa haddana Trump waxa uu leeyahay cunaqabatayntii ayaan ka qaaday. Sidoo kalena warar ku dhow madaxweyne Trump ayaa waxay sheegayaan in ilaa iyo 7 wadan hogaamiyaashooda oo toddobaadkan madaxweyne Trump uu u sheegay in Iiraan ay qarka u saaran tahay inay isdhiibto. Marka Trump asagu mar kastaba uu kala hadlayaa oo hadallo kala duwan ayaa ka soo baxaya. Haddii howlgaladan Maraykanka iyo Israa'iil ay sii wadaan ay ku duqeynayaan militariga wadankaasi Iiraan waxay qarka u saaran tahay inay isdhiibto ayuu leeyahay. Ugu dambeyntii haddii aan eego kiiskii Feeding Our Future, shalay iyaguna waxaa dambigooda qirtay qoyskii aan idiin sheegay oo qaarkood ay qirteen Arbacadii dambigooda. Marka Caaisha Xasan Xuseen, Suleymaan Yuusuf Maxamed, Sahra Shariif Cusmaan iyo weliba Faadimo Maxamed Yuusuf oo iyaguna qoyskaasi ka tirsanaa dambigooda ayay qirteen. Marka ilaa hadda sanadkii 2022 baaritaankan markii uu bilaabmay kiiska Feeding Our Future 79 qof ayaa dacwad lagu soo oogay. 7 qof dambigii waa lagu helay oo 5 waa la xukumay, 2na waa xukun sugayaal. waa haweeneydii madaxda ka ahayd ururka Feeding Our Future Amy Back iyo Salim Saciid oo hadda sanadkii ka soo wareegtay 19 March ee sanadkii 2025 ayaa dambigooda lagu helay. weli xabsi ayay ku jiraan, xukunkooda ayay sugayaan. sidoo kale 57 qof ayay marayaan dadka dambigooda qirtay. waxaa la leeyahay 1 qof ayaa dhintay markii dacwada lagu soo oogay, kadib 5 qofna wadanka waa ay ka baxsadeen, waa fugitive oo waa la raadinayaa. marka sidaasi ayay kala yihiin. ilaa iyo 7 qofna hadda kiiskoodu waa pending oo weli maxkamad lama soo saarin. marka sidaasi ayuu noqonayaa kiiska Feeding Our Future ilaa iyo 79 qof inay yihiin dadka ilaa hadda dacwada lagu soo oogay. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta, intaan mar kale kulmi doono. nabadgelyo.